aniga meeshaan uma soo istaagin yani waa hadlay dhibka la ii geystay waa ka hadlay laakiin waxaan usoo istaagay saddex qodob inaan meeshaan ka sheego oo dhalinyarada ku saabsan midna annaga nagu saabsan ugu horeyn waxaan ka hadlaa dhalinyarada sida ognaha annaka yani dowladnimo intaa wax garto way iska yar tahay inta dowlad yani magaceeda hataa aan haysano waa yani dhalinyarta way qaxeen qaar way tahriibeen maalin kasta waxaan ka fiirsanaa social mediaha facebooka wiilal lagu garaacayo Liibiya oo ooynaayo oo dhahayo lacag ha noola aruuriyo oo walaalo waa ku toogaan nin carab dhahayo oo asna leeyahay yaa yani dameer uu leeyahay yani meel kastan saasay ugu qaxeen Kenya ugu horeyso Kenya marka aad joogtid askariga uu soo qabanaya bila sharci dada gacmuhu ka soo xiraa wax kale kuma sameeynayo yani wuxuu ku geyn karaa stationka sharciga ku marsiin karaa kadibna wadanka uu ku soo celi karaa laakiin ma sameeynayo maqaayadaha Kenya ku yaal dhan ku soo marsiinaa oo isli ku yaalo qofkii Kenya taga yaqaan si Soomaalida kale ee ku aragto oo yani lacag lagaaga siiyo meesha maxaa ku dhimanaa sharafkeena meeshaas ku baaba'ay hadaa dhalinyaro Soomaaliyeedna meel kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed ee joogtani saasay ugu dulmantaa meel kasta u qaxnana yani cid sharaf noo haysan ma jirto wadankeena bis aan ku sharfanahay maanta waxa aragtaan wadankeena aan ku sharfaneyn hataa in mid aniga ila mid ah oo sideeda u qaxay oo bilaa dawlad ah markii hore haddana dawladii yani xilal ka qabtay ama askari ha ahaado askari waa yani qaran waaye amaanta aniga biskoolad igu taagaya dhahaaya ma hadli kartid aniga inta ku hadlaa marka Soomaaliya ku hadli waay ma Kenya inta ka banaan baxaa leeyahay yani ma xiri kartaan meesha kaliya inaan ku hadlo aan rabo waa meesha aan u dhashay aniga oo xaq aan ku leeyahay waxa aan ku hadlayna qofna ma dulminayo yani arrin dastuuri ah oo aniga ii fasaxaysa inta banaanka istaago inaan hadlo waay sida la ogyahay yani dastuurka waa yani dastuur qabyo ah oo Soomaali yani ay ku soo heshiisay qof dhalinyaraha oo gol ma jiro 4.5 wax la dhaho laakiin waa ku heshiinayda hal kala la waayay taa micnaheeda gorma gaarina marka 4.5 sidaan ugu baxeena hadaan ba anagoo dhalinyaraha hadli karin oo xataa hadalkii noola diiday sideen wadankan uga saareena 4.5 madaxda fadhisanay yani kuwa masharaxiinta ah oo yani doonaya kursiga iyo ninka hadda madaxtooyada haysta oo madaxweynaha noo ah sidoo raba inuu nooga saaro 4.5 oo qof iyo cod aan gaarno hadda microphone kii diida inaan ka hadlo oo qeeliyo aabal ii diidanahay arinta kale oo qodobka labaad ka hadla waxay tahay dhalinyarada meel kasta ku dhibaataysan yihiin xataa hada shaqeynayno dad badan dawladda u shaqeeya hadli karin يعني فكرته ديبه كرين ayagoo يعني inay shaqadooda waayaan ka cabsanaya sax waa u garaaba ayaga ma tahriimin waxay barteen dawladda shaqo ka heleen hadee waayaan banaanka taagnaanayaan inta shaqo la'aanta oo aad u badan ay ku darsamayaan qof kastana qoyskiisa ayaa dhaqaale naf iyo maalba u soo hura meeshan wuxuuna doonayaa inuu shaqaysto oo wax gaaro qof rabo ma jiro in wiilkiisa shaqo laga soo buriyo laakiin hadaanan maanta sharciga anaga u heelinin cid u heelinaysa ma jiro dhalinyarada yani wadankan gumeysi ka saar 13 ay ahaayeen Israel dhalinyaro ahaay ma ahayn odayaasha yani ku shiraayo jasiiro ee masharaxiinta midowga masharaxiinta qofka ay u doodayaan adika maaha ayaga inay taliyaan u doodooyaan ee kursiga qaataan laakiin adinka la in karaba in xaqiina aaraadsatiin midda kale dhalinyarta waxa u maleynaa ma rabaan inay wadanku hogaamiyaan u maleynaa ilaa ay ka gaaraan 60 sano ama 40 sano ay ka gaaraan 40 sano xataa waxa isleeyahay dhalinyartayga ay dhowdaa yani hadaadan soo dagaalamin marka aad 20 iyo 30 aad jirto 40 waxba kuma helayso maxaa ku helay waxba kuma helayso yani kursiga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ee leeyahay yani waqtiga dheereysatay waa dhamaada waqtigaaga nooga kac dadka dhahaaya
ويعني odayaashaas waaye odayaal 30 sano la soo xukumayaan anaga sida saxda oo dawlad la'aan u ahayn ilaa hadda ma arko wax aan ka helay maalin kasta taagna ilaa artay taagnaayeen ee qeylinaayeen ay kala asaastaan anaga wadanka wax kuma leeyin ma ka hadli karna miyaa labadiinaba yani si yani nabad ah isku dagaala kursiga si nabad ah yani aan wax ku xalina walaalayaal annagana dagaalan iyo yani inaan barakacno hanoo sababina adikana kursiga si xaq oo sharci ah ku raadsada madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne sharciga u soo laabo sharciga waa waxa kaliya oo qof kasta ka sareeya madaxweynuhu sharciga waa inuu ka sareeyaa sharciga mid aan u rabo inaan yani loo soo laabto inuu madaxweynaha ka sareeya mid u dambaysa ka hadlaaya dhanka waxaa waaye dumarka yani dad badanaa handadaaya luuqa kaagal soo hadlaya wuxuu leeyahay sida saldhigi liigeeyo idinka gabdhaha tihiina maxaa in soo baxshay yani gabdhaha tihiina maxaa ay ka gala dawlad waay u doodaysin au qeelinaysin gabdhaha tihiina maalin ku dambaysa hadlana waxay dhahayaan gabdhaha tihiin yaa hadla idin dhahay idinka baa guryihiina joogtiin nimanka idin soo dirsanaa maxaa waay idin gabdhaha tihiina ani gabar waay haa laakiin wadanka xaqa u leeyahay gabar yaa dhaxaq muula wadanka qofka qaxaayo oo faasko qaxay aniga waay oo ilmaha afka ku qaaday ani waaye banaanka markoo tagana biyaha dhaamina ani waaye nimanka inta ku haraayaan waa isku dagaalayaan ninkii raayana uu joogaa laakiin yaa qaxood yaa ilaa dhaabtagooy ani waaye yaa jidku ku umulooy aniga waa qofka jidka ku umulooy wadooyinka marka la xiro qofka ugu horeeya dhibaatada soo gaaraysa ani waaye cid kale maaha ninkaan waa iga xoog badanya waa lugeena aniga anoo waxaa laga yaabaa xaalado kale ku jiro in wadada la xiro dhakhtarna u socdo meel aamara ma haysto taa dhalinyarana arrin yara in kaga sheekeynaa oo adii waxay dhacday waagii talyaaniga waxaa jiro nin abwaan ah qoraa ah yaasiin cusmaan baa la dhahaa ninkaas qofki yani aqriyo bugaagta yaqaana reer qardhood waaye gabdhoo dhale gabdhihiisa yani aadaa loogu caraadi jiray sida la sheega yani ingiriiskii gabdhihii waxay barteen shaqaalooyin bay ka noqdeen gabdhaha kaliya ma haystay waxaa la dhahay marka gabdhahaadu yani ma fiicno ma wanaagsano yaa dhahay gabar yani inay usoo shaqeyso yaa dhahay inay gabar baxdo yaa dhahay yani hadda gabdhaha wax fiican ay ku jira inaa wax bartaan inaa hadallo maanta yani waxaa waa inaa kasoo baxnade ninkaas marka aaday u dhibaateynayeen gabadhiis markay wax baranayso dadka yani gabayay kusoo marinayeen abwaana u ahaa abwaanada kale xataa shaax lama cabi kara yani way ku ceebinayeen gabdhihiisa oo yani banaanka aadaa wax soo baranaya lagu ceebinayo gabadhiisa shaqo hesha marka oo shaqeysay markaasuu hadlay yani gabay u soo jeediyay gabaygaas wuxuu ahaa waagii baryaba gabaru haddii waagii baryaba si u eg yeelayso wareegu waa ku ceebay hadday weligeed diidayso wargeysyada iyo raadiyaha hadday wada ogaanayso bal maxaa wiilku dheeriya hadday wada tohosheega yani wax oo dheeriyaha wiilka hadda ma arko le wiilashiinii baa yani adinka xabaalaha qodaya anigana gabadheedu way shaqeynaysaa yani wax uu wiilku dheeryahay hadday wada tohosheega intaasaa kale yani dadka idhahaaya dumaraad hee meel fariiso okay waqtiga oo yar darteed waxaan leeyahay marka dhalinyarada soomaaliyeed ragta shadaal dhaay cirkoo taaka tarar u gaaraa yani uu tolaa mahmaaha adhayso marka aad tashanaa leeya wadankan yani intaan marti uga haan lahayn madaxda isku haysato kuraasta annaga aan ka tashano kaliya yani ragga musharaxiinta iyo madaxweyne maxamed farmaajo dad qaar waxay u haystaa in madaxweynaha yani mucaaradaayo oo leeyahay kursiga ka deg ma dhahaayo aniga kursiga ka deg ma dhahaayo waqtigiisa dhamaaday madaxweynaha waxaan leeyahay sharciga u soo laabo si sharciga wadankan ugu soo noqo madaxweyne haddana aan kuu soo cabinno haddii yani sharciga oosan sareenin way nagu soconaysaa de ninkan kuwa musharaxiinta markay imaadaan sharciga ku tumanaya kol madaxweyne farmaajo ku tumanayo hadda ayagana beri waxay leeyihin madaxweynihi ayad had sida yani social media aa ka aqrinaysiin xasan sheekh asbasaas yeelay xasan sheekh haddoo yeelada waa khaldanaay haddana marka madaxweyne farmaajo hadda uu saan sameeyo ama hadda qof kala qabso wuxuu leeyahay madaxweyne farmaajo ku tunta sharciga anigana waan ku tumana yani sharciga ha sareeyaa leeyahay yani cidna kuma tuman karto kuwa kalena waa usoo istaagi doonaa waana la hadli doonaa haddii sharciga ku tuntaan waa mahadsantihin